war-saxaafadeedkan ka soo baxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay abaarar 10kii habeenimo 22kii bishii 6 2015 saldhig boolis ee xarunta degmada ee magaalada Beerdheer ee gobolka Gado hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya hay-adda NISA ee ka fulisay laba weer oo si aad loo soo qorsheeyay waxaana fuliyay uu ka tirsan shabakad si gaar ah loogu diyaariyay howlgallada noocaasi war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in weerarkan loo adeegsaday bamgacmeed iyo garneelo lala beegsaday mas'uuliyiin ka tirsan al-shabaab oo kulan ku lahaa goobtaasi xilliga hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya ee NISA ay ka fulinaysay howlgalka war-saxaafadeedka ayaa waxaa intaasi uu ku daray mas'uuliyiin ka tirsan al-shabaab in ay ka soo laabteen goobta loo yaqaan Daaro oo 30 kiiloomitir u jirta magaalada halkaas oo ay ku sugootinayeen ciidamo ay si gaar ah u tababareen howlgallana ay u direen waqtiga uu weerarka dhacay waxaa xarumahaasi goobjoog ahaa mas'uuliyiin iyo ciidamo ay ka mid yihiin sida lagu sheegay war-saxaafadeedka madaxa siyaasadda iyo gobolada al-shabaab waaliga al-shabaab ee gobolka Gado madaxa howlgelinta al-shabaab ee gobolka Gado madaxa xabsiyada maxaabiista ee al-shabaab iyo kuwa kale oo badan war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkan uu jawaab u yahay falkii weerarada al-shabaab ay ku dhibaateeyaan danaha iyo masaalixda ummadda Soomaaliyeed kuna beegsadaan shacabka bidmageedada ah iyo dadka waxtarku ah bulshada oo ay ugu dambeysay qarxii ay la beegsadeen guri shacab ah ee ku yaalay degmada Shibis 22kii Juun 2015 war-saxaafadeedka ayaa lagu soo gabagabeeyay hay-adda NISA waxay wacd ku mareysaa weerarada noocan oo ku cusub Soomaaliya in ay sii badin doonto ayna dhici doonaan kuwa kale oo lagu ilaabi doono weerarka ay ku qaadeen unu ka tirsan NISA magaalada Beerdheer dhanka kale xarakada al-shabaab ayaana jirin ilaa hadda wax warbixin ah oo ka soo baxay dhankooda oo ku aadan weerarkii ay ku qaadeen hay-adda NISA magaalada Beerdheer oo ka tirsan gobolka Gado Zikri Maxamuud, Universal TV, Muqdisho.